dabeetana wuu u waraabiyey hadhow inantaasi markay aabbaheed la hadlaysay ee rabtay ninkan in reerka aanu ka tegina si uun loogu hayo ayaa waxay tidhi yaa abat ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin aabbow ninkan shaqaalaysiisa bay tidhi oo ajiir ka dhig ina khayra man ista'jarta alqawiyu lamiin bay tidhi qof shaqo loo dirto waxa u fiican qof xoog leh oo qawiyo wixii qaban karaya ammaanana leh idan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa mu'minka xooggan oo ay ugu horreysay ilaahay rumayntiisa iyo daacadiisa iyo cibaadadiisa iyo acmaasha aakhire ku xooggan dad baa jira sida kale u xoog badan laakiin marka ay timaado cibaadaadka iyo diinta iyo caqiidada ducafa ah kani kow waa qof baabkaasi ku xoog leh ka labaad waa qof bay yidhaahdaan muntij ah qof wax soo saar leh kaasi wuu ka khayr badan yahay mu'minka daciifka ah haddana wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wafii kullin khayr mu'min oo dhanna khayr baa ku jira hadduu qofku iimaan iyo camal la yimi ha laba kala martabo sarreeye khayr baa ku jira waxay yidhahdaan culamaa ilbalaaga masaladan oo kale alixtiraaz bay yidhaahdaanoo waxay ku tilmaamaan qofku intuu war yidhaahdo in siyaabo kale aan loo fahmin ayuu ka ixtiraazaa مثلا إلهي القرآن كوحو كويري لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا مص النبا إلهي يري كوي فتح مكهر تد حولها بحيات دقا الله ما يدين توسوها القمي كوا سا درجة سرية وفتح مكة وحي كدن بي وحي مركاي السلامية وحقبطيميان وحد وترسيس الهين هداد سيدا وفهم الهيد ويقلدم الهيد لكن إلهي بكسي جوابه وحولي وكلا وعد الله الحسنى دمان تود إلهي باوية بوهي وناق لبضو بوناق بيلي سيدا وقيد مثلا قصة النبي داود يا نبي سليمان وحكمي مركا إلهي تلمامي وحولي وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان بإلهي waxaa xustaa nebi daawud iyo nebi sulaymaan markii ay xoolihii beerta galay xukumayeen waxaa ilaahay ku tilmaamay fafahamnaha sulaymaan nebi sulaymaan baanu fahamsiinay nebi sulaymaan baa la fahamsiiyey daawud wax garan maaya miya maya si aan kaa looga fahmin baa ilaahay yidhi wakullan aataynaa xukman wacilma dhammaantood waxaanu siinay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala xukum iyo cilmiba labaduba dhammaantood way lahaayeen آيات كلا إله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولو الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى على كل نحن وصعنا وفي كل خير إني تلماميسو مؤمن كإيمان صحيح لقاها لا طاعد سليمي كل بين خير كسوغيني لكن markay timaado mu'minka in classification lagu sameeyo in la kala sooco inuu ka qawiga iyo ka khayr badan yahay ka daciifka abu nabigu tilmaamay alayhi salatu wasalaam qaacidada markuu nabigu sheegay ayuu wuxuu inoo tilmaamayaa dardaaranana siinaya dardaarankani waxa uu sheegayaa wixii qofka mu'minka qawiga ka dhigi lahaa maxaa qofka mu'minka xoog u yeelaya wuxuu nabigu yiri kow احرص على ما ينفعك waxaad ku dadaashaa oo ilaalisaa waxa ku anfacaya nolosha aynu joogno bini aadamku waqti isku mid u haystaa waqti isku mid ah inta badan dadku 60 jir 50 jir 70 jir meelaha waa soo wada gaadha laakiin midhaha iyo raadka ay dunida kaga tagaan iyagoo isku waqti noola waa kala nooc sababta uu kala noociyana waa masaladatan camalka bini aadamku qabta waa saddex qaybood mid oo inuu yahay qayb ku anfacaysa qayb wax tarta aakhiriya adduun manfacuun leh iyo inuu yahay qayb wax dhibta aakhiriya adduun ma dhibaato kuugu jirto iyo inuu yahay qayb aan manfac iyo madaro toona lahayn laba inaad ka tagtaa marka la raba midna qaadatid